madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jilbaha dhulka ugu dhiftay Kenyatigii isaga oo sameeyay guul weyn oo taariikhi ah oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogan ay ku farxeen caawa oo kale marada madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo cimaamadiisa lama haysan karo وصعب hortaada guul taariikhi ah ayuu ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud maanta u horseeday isaga oo sababta ugu weyn ku lahaa inay dawladda Djibouti gaar ahaan wasiirkii arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo ku guuleysto hogaamiyaha golaha fulinta ee midowga Afrika ama gudoomiyaha golaha fulinta ee African Union haddaba madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud laba arrin oo waaweyn ayuu sameeyay si ay Djibouti ugu guuleysato xilkan waxa la xasuustaa in dad badan oo Soomaaliyeed oo siyaasiyiin ay ku jiraan ay aflagaadeeyeen madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo ku aflagaadeynaya sheegayana inay Soomaaliya iyo xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan uu ka hor istaagay inay u tartanto kursiga golaha midowga Afrika hase yeeshee haddaan runta u hadalno oo aanan labada indhood ee aan leenahay allanas iyo aanan iska indhatiraynin Soomaaliya marxaladan ay ku sugan tahay marka la eego aad bay ugu adkeed inay kursigaasi ku tartanto laakiin waxa fursad weyn u haystay kursigan inay ku guuleysato dawladda Djibouti oo ah qayb kamid ah ummadda Soomaaliyeed Djibouti waxay hesho waa wax Soomaaliya ay heshay qofka Djiboutiyaanka ee Soomaaliga ah ee Maxamuud Cali Yuusuf oo kala ah oo kursigan fadhiisto waxay ka dhigan tahay iyadoo qof Soomaaliyeed oo kursigan haysto oo uu difaacayo danaha dadka Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka soo gaari karo sidaan wada ognahay Djibouti waa dal walaal ah Soomaaliya waa mid kamid ah dawladihii kaalinta ugu muhiimsan ama number 1 ka ahaa dib u yegleelida dawladnimada Soomaaliya maanta haddaba guusha dadka Djibouti ay gaaraan waa inay ku farxaan dadka Soomaaliyeed laakiin guushaasi waxa kaalinta ugu weyn ka qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud marka koobaad wuxuu codkiisa siiyay Djibouti marka labaadna maanta madaxweynuhu xitaa hal mar ma istaagin olole weyn oo diblomaasiyadeed ayuu ka dhex waday shirkii guud ee meertada golaha midowga Afrika ee ka qabsoomay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dawladda Djibouti gacan weyn oo marnaba aan la dheelsan karin oo ah mid walaalnimo ayuu maanta u fudiyay isagoo in allaale inta uu diblomaasiyadda kari karay oo ololaah u sameeyay si ay Djibouti ay ugu guuleysato kursigan marwo fertility center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka lagu dooro daaweyn qalliin iyo bacriminta IVF waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii Maxamuud Cali Yuusuf ayaa helay taageeradii loo baxnaa ee 3 meelood labo oo ah codadka hogaamiyaasha gobolka oo ku jiray caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa taas oo suurtagelisay inuu qabto xilka gudoomiyaha golaha midowga Afrika oo ah qaarad ay ku nool yihiin 1.5 bilyan oo Afrikaan si kastaba diblomaasigan oo 59 sano jir ah ayaa la sheegay in ololahiisa xasiloon oo degan inay u suurtageliyeen ama ay qayb ka qaateen inuu kursigan ku guuleysto وافي وصاحبكاga safarka iyo dalxiiska hadii aad ku nooshahay qurbaha waxaad ku soo wici kartaa ehelkaaga iyo asxaabtaada ku sugan dalka miyi iyo magaalaba ka iibso waafi app xirmooyinka jaban ee usbuuclaha ama bilaha ah waafi app kala soo deg Play Store ama App Store dad badan oo Soomaaliyeed ayaa tan iyo maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku bogaadinayo tallaabada walaaltinimada oo uu qaaday sidii uu Djibouti kursigan uu ugu guuleysan lahayd dad badan oo Soomaaliyeed ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka eedeynaya inuu Kenya la jiro isla markaana uu rabo inuu Raila Odinga uu ku guuleysto kursigaas laakiin warkaasi maanta waa beenoobay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa caddaatay inuu rabitaankiisu ahaa inay Djibouti qaadato Kenyatigana ay ahayd dacaayad siyaasiyiin Soomaaliyeed ay abaabuleen madaxweynahaadu marka uu tallaabo qaldan qaadayo dhaliil laakiin marka uu tallaabo saxan qaado waa inaad taageertaa waa waajibka lagu leeyahay waa mahadsantihiin muuqaalka leegna saaro oo si share gareeya